السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لا مركز سؤال وهذا ما أنت وحكي هاللينا وحلو يقان ويب 3. أنت أنا ويب 3 كهالين وح مهم إن لفهمه وحلو يقان ويب 1 ويب 2. ويب 1 وحواي سجاش ميدي وكسب بلاودي وإنترنت كي يجوه الرئي عن استعمال الجرني ومركي عن إنترنت أنت فيرنو كمبيوتر كأن فيرنو عن أركيني وحجرنا لذي قراين وحول بق وحنوع هاي وآخرين جرني أنا كم جوابي كرين log in مسمي كرين واحد كومنت كم بحي كرين آخر سكلية أو هاي ويب 1 يا سكلة ويب 1 كانوا يلا هاي شركة هوين سيدا جوجل وكلته ي فيسبوك ويب 2 وحلو يقانا وحواي مركي ويب 1 كي لبض كون لسوق جاري وحصوب بحي شركة هوين سيدا لو يقانا انستغرام وكلته شركة صوب بحي ي فيسبوك شركة هاس waxay ogolaadeen in adiga aad sameey kartid in log aad gali kartid page adiga leedahay aad sameeyay kartid waxyaabaha aad comment ka bixi kartid adiga marka hore waxay ahayd web 1 wuxuu ahay hal dhinac ay warku socdeen wax walba anaga xageen u socdeen oo anaga la qaadanayna hadda waxa waaye web 2 ga laba dhinac u socda anagana comment ka bixi karnaa anagana waxaan la soo gudbi karnaa information wax walba oo web 2 ku saabsan waa maanta aan joogno web 2 ga wax walba sa ognahay snapchat ahaado meel walba aad gasho waxa sameey kartaa comment ama waxa ka sameey kartaa page adiga ka leedahay profile aad leedahay login inta ku sameeysid aad isticmaali kartaa feedback sameey kartaa web 3 ga soo socdo marka web 3 ga waxa waaye stepka soo socdo teknolojiyada xageeda hadii la fiirsho waxaana waaye web 3 ga ka soo qaad web 2 ga anaga waxa isticmaali karnaa facebook ga waxaan isticmaali karnaa instagram-ka wax shirkadaha waaweyn ee noo ogol yihiin oo clear aan isticmaali karnaa haddii adiga facebook ay block ku saaraan ma isticmaali kartid marka waxa waaye shirkadahan instagram iyo facebook ha ahaato snapchat ha ahaado waxaa isticmaalaysaa adiga just because in adiga ku ogolaadaan inaad isticmaasho ha ahaato whatsapp viber meel walba waxa waaye shirkadahaas block ay ka saari karaan laakiin ayag maadaama iska leeyihiin waxay ku ogolaadeen in aad isticmaasho web 3 ga marka difference u dhaxeeyo web 2 iyo web 3 waxa waaye wax walba oo web 2 ga ku taqaanay web 3 ga ku sameynaysa oo comment ah bixi kartaa wax walba sameyn kartaa laakiin web 3 ga difference waxa waaye adiga waxa ka mid tahay dadka iska leh community ga iska leh community ga fikirkooda ra'yigooda hadalkooda ala qaadara community ga u taliyo sidii shirkadaas ama web page kaas oo isku bedeli doono community ga u taliyo web 3 ga waa kaas sida loo yaqaano marka intaan ka hadlayo web 3 waxaan ka hadlaa mobile cusub oo soo bixi doono hadda waa mobile ugu horeeyay oo crypto ahaan loo soo saarayo waa mobile loo yaqaan magaciisa Saga waxa waaye sheeko saa u naqaano oo Ingiriisiga waxa soo saartay shirkadda loo yaqaano Solana waxa waaye shirkad crypto soo saartay aniga fanaandeeda meeshaas calaamada ku qoran waa calaamada Solana waxa ay ugu qoran xabadka waxa waaye hodl waxa laga wadaa hold on for dear life muhiimadana waxa waaye ay ugu qoran tahay cryptaha marka suuqa cryptaha ku jirtid muhiim waxa ah hadii suuqi hoos u dhaco ina mentally ay adag tahay isleedahay oo soo noqon doona isdaji stress ha galin tartiib marka waxa waaye ina haysatid waxaaga aadan iska gadin iska toorin just because ina hoos u dhacay waxa waaye muhiim in aad la socoto suuqa cryptaha hadii adiga cryptihi aad soo iibsatay hadii aadan iska gadin cryptahaas ma ku qasaartay mise ma ku qasaarin kuma qasaarin oo wixii aad soo iibsatay haysataa ama $100 ka bixi ama $1 ka bixi wixii waa haysataa hadii suuqa maanta oo hoos u dhacsan yahay max ka gal malaha faa'iidadii wixii aad gadatay wixii waa haysataa oo wax kaama dhumin sida waxa ka soo qadaa guri aad gadato guriga hadaad gadato hadii meeshaas guriga oo ku yaalo qiimo dhaco ku dhaco guriga hadii hoos u dhaco qiimihiisa hadii aadan iska gadin gurigi ma ku qasaartay oo lacagtii eber ma ka noqotay waa may sababtoo ah guriga aad soo gadatay hawli haysataa barika maalinna waxa waaye guriga kor u laaba doona qiimihiisa sida hore u laaba doona marka sidoo kale waa cryptaha wixii aad gadatay
inay haysatid ilaa ay soo laabtaan ee qiimihii kor oo u kaco, maadaama hadda suuqi oo weerarsan yahay oo hoos u dhac ka jiro. fikir fiican maaha in wixii la soo gatay la iska gado. shirkadda hadda Solana mobilka ay soo saartay waa soo iibsan doonaa markii oo soo baxo. hadda soo ma bixin, wuxuu soo bixi doonaa 2023 bilowgiisa marka uu soo baxo. markaas aan soo saari doonaa, aan ka sheekay doonaa page-ka soo saari doonaa. waxyaabaha uu leeyahay oo kale mobilka waa mobil Android ah, Apple ma ahan. wuxuu ku shaqeeyaa Google Play oo kale leeyahay. wax walbo ee mobilada maanta aan isticmaalno ee leeyihiin uu leeyahay. faa'iidada uu leeyahay waxa waaye laakiin mobilkaas mobil oo encrypted ah waaye, encrypted ah waaye, oo aan laga hackay karin, aan wax laga sameey karin. waa mobil web3 ku shaqeeyo. Google Play-giisa oo kale markaa gasho waxaa soo degsan kartaa web3 page ah ama ha ahaado game ha ahaado wax walbo. taas aan ka hadli doonaa markii mobilka uu soo baxo. hadda mobilka soo ma bixin. mobilka marka uu soo baxo dadka gataan NFT oo free ay sii doonaan shirkadda, dadka ugu horeeya oo mobilka gato of course. marka waxa waa arki doonaa haddii aan helo NFT. laakiin hadda sida la joogo sugitaanka lagu jiraa. soo dhawaada marka walaalayaal waa is arki doonaa duleerada. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.